xabsiga markaan ku jirnay waxaa dhacday rag dhalinyaro badan baanu nahay oo iska sheekaysto oo marka waniyo gabadhaas anigu ku haystaaba dhalinyaradu iska oranaysaa waniyo anigu taasabaan ka helayba macnaha dee madadaala bal ka dhiganaya waqtigaas habeenada kamid ah ayaa waxa dhacday gabadh baa shaqada soo gashay gabadhaas dhowr jeer horena shaqada way soo gashay gaarka nagana ilaalinaya marka gabadhu waa gabadh Mareykan oo tii askariyada sarkaalada waliba marka waxa dhacday gabadhii ayaan ku yiri dhalinyaro anigu gabadhaas sabab ku haystaaba akhlaaqdeeda iyo wanaageeda runaantii iyo quruxdeeda way bay soo jiidatay aniga markaas ay dheen warayay war awaankii aawa uu degdegayaa warniyo yalla faaga lagu xidhniyo markaas aan ku yiri anigu aanu sheegtaaba aan doonayaa jacaylkayga gabadhane aawa ila taga hadii aan anigu u tago keligii wala xidhayaa meel dadka dee lagu ciqaabaa jirto oo jeelka ka sii hooseysa marka anigu halka dooni ma inaan tagay keliga laakiin hadii dhamaantiin wada tagno cidina halka inama geenayso saaxiib marka ila taga waa laga kala farxaday waxa leeyahay anagu kuma jirno niyo marka maansaan ka bilaabay halkii qaybna aan gabadhii kaga sheekeynayo qaybna aan kaga sheekeynayo inay dee gabadh sarkaalada toon lagu dhici karayn qaybna aan leeyahay warnimayo maxaad gabadha oo iyaga laftigooda saaxiibaday marka ana bisaas horta ku bilaabantay marka ayada kulli sharaxaysa qaybaha dambe aan siiradu taago waxay oranaysaa cabaariyaha ku yaaliya gacmaha shaashka cududeeda indhaca u lamoodiyo wajiga caadil ku abuuray cudoonida talaabada markay faalla cuganayso cod yaraanta waxaad moodaysaa geeyo camalkeed cadaantiyo jidhkeedaad sidii curubta moodayso ninkii calaf ilaah ugu daraa wuu cayilayaaye anna waxaan la caataysanahay canab daraaddeede sidii aanu caashaqay hurdadu way igu ciririiqe cunadii daraaddeed ka go'ay taanu ciilahaye ciddii aanu sheegaba anay igu ciyaaraan dhallinyaradan saaxiibada ahaynaan u sheegtay kaftan bay u qaateenba mari sidii caddaan ugu badheedh oo sheego cudurkaaga misna waan cabsaday oo ka baqay inay isoo caydo inay igu tirahdo maxbuus baa tahay umana qalantid inaad jacaylkaaga ii sheegtay sirrinteedaad intaas ay igu filaan lahayd marka waan sii garnaqsanayaa kulleed wixii ay odhan lahayd waan garanayaa misna waan cabsaday oo ka baqay inay soo caydo mari sidii nin ragi ma cabsadee uga nasiibkaaga war wax kastaaba kaaga dhacaane gabadhan iyo sheego intuu hadalku ku gubi lahaa misna inaan xabsiga misna waan cabsaday oo ka baqay inay soo caydo mari sidii nin ragi ma cabsadee uga nasiibkaaga misna inaan xabsiga ceeb u galo waan ka cagajiiday oo waxaaba nasriniyahow bari baa lagu sheekaysano dhalinyarada saaxiibadan warninkiniyow xalay buu dee yaa kawdhe mari sidii cabaar daawo oo caawa yara seexo misna inay carowdaan ka boqon cadha ka sii qaado dee habeen barkaaba la bedelayaaba ilaa waa shaqaale waa askariyada misna inay carowdaan ka baqay oon cadha ka sii qaado mari sidii qoraal ugu caddee canab jacaylkaaga misna inay caasada ka baqay duulku waa cadowe dumarku dee dad jacaylkaaga u sheekaysan Soomaaliya gaalo waxay doonaan noqdaan kulliba markaas bay sixir sare garacanaysaa sida la sheegay cakuye naag sarkaalada ninkii dooxu kaga ciiray ee aan codkana dhiiban karin caashaqna u liita cilada ninkii garanayo maanta iga caawi warbal ninka naag sarkaalada jeclaaday ee aad caashaqeedu ugu daran yahay waliba aan codkana u dhiiban karin ee deeyadii waxba u sheegan karin bal arinta ninkii garanayo gala